xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa waxa ku soo laabanaya qaxooti horay u aaday Soomaaliya kuwaasoo hanfariir iyo naxdin ka qaada qaraxyada iyo ammaan darrada ka jirta Soomaaliya waxaana kamida Jamiila Xasan Cabdi oo si diriqiya uga badbaaday masiibadii Soobe 14 bishii hore Soomaali markii aan bixeen wadanka wuu fiican yahay oo lahayd waan tagnay markii koo aan tageen waxa la kulmay markii aan tago koo qaraxan la kulmay wadankii aan nabad ahaan oo lahayd dhibaatooyin fara badan la soo kulmay qarax waxa la dilay arkay dad go'ay aan fikir karin ilmihi xataa waa iga saseen alxamdulillah ilaaha maad iska leh silac is xariiran ku imaantaa gaariga lacagta aan ku soo raacandidana ka soo bixiyo oo soo aruuri wax aan ku soo baxna markii aan waynay marka Soomaali horta gaaji ma taar laakiin qarax iyo silac is xariir firran soo galay dadkii aan isla deganeen waa ku dhamaadeen ilmihayga laakiin waa ii badbaadeen wax miiga gaarin xariiran ku imaanay dadana soo caawiyay ciyaalkayga xataa ay soo aruuriyay iga daba keenay guriga silac ay xariiran oo soo baxnay dadka la daad gureyna xataa ciyaalkayga inay ku jiraan oo maleynay laakiin ilaahay uu darin alxamdulillah saan qarax oo dhaxay aabaheena meesha oo qaraxa ka dhacay wuxuu ku geli jiray biro Jamiila waxay wadataa 8 caruur mana haysato guri gogol cunno waxayna joogtaa muddo 3 bari ah waana la baartay wixina laga qaadanaa laga qaatay xataa laba gabdhood oo gaariga saarnaa waa la degsaday anaga horta ilaahay waa naga soo ceeymi 3 bari aan joognaa khamiista imaanay khamiista ya wax ahdi caawina iyo wax loogu caawinaysto wax i caawi ama soo dhaway oo hay'adaha ay ma arkin laakiin dadka oo meelaha degan wixii kii jirgaankan oo kale iyo jirgaan iyo kii oo isiyo maxay ahayd iyo raashin iyo cunay soo aruuray iyo la ina qatama wax had aan haysto malahan hay'ad la isoo dhaweyn ma hina dadka xoogga joogan wixii caag siinay wixii oo hadda maxay ahayd wax aan cunano nasiyo ee naqatma hadu had anaga aan haysan ma jirto hooyadan Soomaaliyeed ayaa la ilmaysay dhibka gaajada iyo duruufta haysata iyada iyo caruurteeda waxayna codsi u dirtay ummadda Soomaaliyeed dadka walaalihii waxaan ku codsan lahaa inay caawiyo dadka walaalihii waxaan ku codsan lahaa inay caawiyo maxay sababta u imaanayso wax ma daan haysan laakiin hal gogolan la sii qolkaas in ku jirta xalaata ana dhulka seexday saaka xoogo moordiya u kari laak duurkan waxa ma u karin saana u fadhina waxba ma haystay maxaa u kariya waxba ma haysan jirgaankan la sii oo dabada ka duleel aad ma u jeedaa saaka dhan waa xirxiray hadda waa xir kan aad u jeedid ana saa u xirxiray waxay fadhiyaan banaan cidla iyagoona caawin ka sugahaya muxsiniinta Soomaaliyeed ee naxariista badan waxaan iga codsanaa inay soo caawisaan gogol iyo cunto iyo waxaad heli kartaa inay igu soo caawisaan 2 cishaan jooga wax ma haysto dadna inta iima joogo waxaan idinka codsanaa inaad soo caawisaan dadka muslimiinta ah meeshay joogaan gurina xataa ma haysan qolkan waa balbalada oo saan u jabsanaa ku jirna xaween hor xataa roobaa nagu soo do'ay dadna inta nooma joog Jamiila markay xusuusato dhibka Soomaaliya ilmada ayaa soo dhaafaysay iyadoona saygeedii naxdintu ka qaaday qaraxii Soobe uu ku waashay isla markaana aysan meel la ku sheegin haddaba ummadda Soomaaliyeed ayaa laga sugayaa caawinta qoyska Soomaaliyeed ee dhawaan ka soo galay Soomaaliya isla markaana dhibaataysan Maxamed Baaruud Xuseen wararkeestiin Dadaab